السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا عبد الرحمن عمر كاهن وشريت ولا إن يورو في كيرغوس كوسان لقيت مي ما دامو وها مر والبا من ونسيني هذا الك وحكى بدن ونسينين ووقت كاتي إن الموقت هاي ملك صورة كبو مركزان هورين وشيء وحن كدور بدل ما إن يورو كوبن وها سكولا كان إنتي جوس كوسكا أنا لقيتمو أن أمرنا إن تهاي saldhig hawshan rabno inaan galno. Okay, marka ugu horeysa muxuu ahaa dadka walaalahay halkan dhageysanaya dad garanaya way jireen dad aan garanayn arrintan aan soo bandhigayo marka warta aniga iskiin bari ciidan dadka aan garanayn oo wax ku saabsan shaqadayda oo waxaan ku takhasusay weeyaan kursiinta shakhsiyadda iyo habeenta bulshada iyo muxuu ahaa marka wixii u baahan faahfaahin waan soo doonaa hadda more information rabtaan laakiin imiga ahaan inta maan inuu soo koobi waxaan soo madhig waxaan soo darsi weeyaan more than 10 sanadood in ka badan aan shaqadana ay tahay aan ku shaqeeyo meeshan joogo kolba halkan imiga waxaan degan magaalada Ottawa marka waxa weeye walaalayaal aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dad dhalinyaro oo iyagu da'yar halkan imid oo maanta aan rabay in dadku wax u qabtaan odayaal noqday sidaan waan kamid ahay iyo Cabdiraxmaan oo garnayo marka waxa weeyaan fikirku waa fikir aad u wanaagsan umadeeni inaan iloobin gaar ahaan wadankan qaaradan ka dhigay Afrika waxaan leeyahay statistics ahaan qarniga aan ku jirno imiga 2030 ilaa 2050 Afrika waxay noqon doontaa leader wixii ku saabsan dhaqaalahan iyo numberka Afrikaanka noqonayaan adduunka iyaga noqonaya number 1 tobankii qofba 6 qof ayaa originkiisu Afrika u yahay waan arki kartaan waxyaabaha soo socda kaba socda xitaa markaad u fiirsataan dadka Mareykanka jooga ama Canada jooga more waxa la arkayaa dad ciyaartooy ama dad caano oo badankooda Afrika ka wali yimaadeen waa tusaale siinaya yani marka daawataan filimkii maxaan ku radaa Black Panther oo kale dadka Chile badankooda original waa Afrikaan ayay ka yimaad kama dhigna qarniyo waa dad ku dhashay Afrika dhawaan iyo markay noqoto Raptorska Toronto badankooda inta meesha ciyaaraysa Afrika ka wali yimaadeen wayna ku faraxsan yihiin in had jeer ay isku magacaabaan Afrikaan bahasitaan calaamado yar oo qaaradda Afrika amba waxba kale waxaana ka midnka presidentka ee Raptorka waa marka waa in Europe bas aan tusayo laakiin ma dadkii darsay waxay leeyihiin 2030 waa 10 sanadood baa naga xigta 10 sanadood Afrika waxay noqon doontaa maxaan ku radaa leader bay noqon doontaa yani waxyaabaha qaarkood 2050 kana number 1 bay meel noqon doontaa marka wadankan kan midda kale dad badan baa inoo dhaafaya hadda oo waa loo tartamaya China waxay joogtaa Afrika muddo imiga 12 sanadood India way joogtaa Brazil way joogtaa marka waa loo wada tartamaya Afrika inaguna hadan xakan soo qaxnay oo halkaan ay siino kaliya dhulkiina aan loo wadaarin marka waan yar intaas hordhac way muhiimka leedahay wadankan wax loo qabto marka fikirka dadka walaalaha ay soo bandhigay aad baan ugu rayaaqay aniguna wixii aan ku soo darsan karo wakaas ku soo darsan maanta waxaan daba xakan soo ordubay in yar oo fikirka shaqada inaan isku soo yarkoobo waxaan dhisan umad baan rabnaa inaan wax qabano wax qabashaduna waxaan hiigsanayno weeyaan on yareen يعني سيدي ugu wanaagsan wax qaban kar lahayn sidii ugu wanaagsan wax qaban kar lahayn marka intan waxba aan la qaban anigu waxaan aaminsanahay waxa jira shaqo homework baa jira u baahan in la sameeyo waayo hadhow toona dhexda ayay maxaan ku raadaan ku hakan doonaa sida walaalkeen sharmarkan fari carabka ku dhuftay ururo badan baa waxa la furay Facebook yaal social media oo maxaan ku raahdaa ummadda wax lagu qabanayaan dadka qoysaska wax magac wal wadaag wax ku qabsanayeen in muddo socdeen markii dambe way dameen marka waxa weeyaan waxa fikirkaaga fuliya amba joojiya amba hakiya waxa weeyaan waa shucuurta waxa weeyaan dareenka ingiriiska waa emotionka weeyaan marka emotionku Cabdiraxmaan aan ka maqlay maalmahan oo lahaa yeena emotion qaadin waa runtii weeyaan haddii emotionku qaado buur baad dhisi buurtaas waxay noqon doontaa xumbo markii wadanta ta kale muxuu ahaa wax carabka lagu dhufto kale ta la yiraahdo intelligent emotions ayaa lagu dhuftay maskaxda shucuurta oo waxaan filayaa qofkii ahaa ma garan laakiin qof baan ka maqlay lahaa yani taasi waxba nama tarayso taasina walaal waxa weeyaan waa qalad haddii taasi waxba inoo tareen aan waxba lagu soo kordhin karayo way tan amisana waa taasi weeyaan
waa ta waxbarashadeedu ku dhisan tahay in maxaan ku rahdaa maskaxda shucuurta la xoojiyo waayo ilaahay markuu bini'aadanka abuurayay laba wax buu ku ibtileeyey wuxuu ku ibtileeyey mid shaydaanka waanu naqaanaa oo waa kan aan u jeedsano maxaan ku rahdaa halka ilaahay markaan shaki ama waswas una galo acuud billahi min shaytaani rajiim aan idhaahno laakiin ta labaad ee kale bini'aadanku had iyo jeer inta badan jaahil ka yihiin waa shucuurtooda amba shucuurtaada adigay kuwadi ay ku liid gareen amba adiga qaaban qalabkii shucuurta lagu handali garanayay qaadan oo si dantaadu ku jirtaad yeeli marka waa shucuurta wax dadka isku dirta waxa laga hadlaya problem internal problem oo lahaa dhexdeena ayuu ku jiraa internal problem meel walba ku jira Soomaali marka la soo eego qabiil walba soo qaado internal problem ku jira marka taasina xal ayay noo noqonaysaa haddaan basekeena dhisno marka guri marka la dhisayo amba qorshe weyn la sameeyo waxaa loo baahan yahay in la dhiso maxaan ku rahdaa foundationka marka foundationka wuxuu ku sameynayaa inuu ku adkeeyo inta dabaqe aad doonaysa kor ka cadid amba aad ka dhistay ayuu ku adkeynaya marka foundationkan waxaan arkayaa maanta labada waxa halka ku sawiran aan soo madhigay haddaan kici doonaa waan tigi doonaa inaan in yar micneeyo وكان هو waxaan su'aasha markuu horeysaan meesha soo galay aan weydiiyey laakiin ana celiga jawaabin samanayo waxa visionku muxuu yahay visionku waxa laga yaabaa inaan dhamaantiin baas ku raaxsanahay oo ay tahay ummadeena wax qaban yani wax ballaaran weeyaan ya ummadeena inaan wax qaban wax qabashadana waxay noqon doontaa dhinacyo fara badan xag dhaqaale xag bulsho xag diimeed dhinac walba noqon doonta marka taasi inta badan waa la isku raacsan yahay oo problem kama taagna oo qof walba wada waxaan qabananaa wanaag baan qabananaa cidna ku diidi mayso taasi waa isku raacsan laakiin su'aasheedu waxay taasi ma rabeen su'aalo marka qaarkood su'aashaasi waxay ku siin doontaa qalabkii aad ku gaari lahayd marka waqtaas haddaba inagoo taas ku raacsan wax qabadkii bulshadeena kuulkii joogay gaar ahaan waana haddaba imiga aan ka wada hadlana baan ka wada doonaa طريق اللومري طريق اللومري waxa weeyaan waa tani weeyaan waa missionkii weeyaan طريقي meesha inay gaarsiin dad baa oranaya diyaarada qaadano marka meel la tagiyo amba gaaraan ku tago marka meanska lagu la tagayay way far badan tahay laakiin halkan qolka waxa loo furay inaan ka wada doodno oo maskaxdeena saliimkeena siiso sidii habboon marka anigu intaan project-kan galin in xaq dhaqaale wax looga qabto xaq siyaasad wax looga qabto horta waxaan rabaa base-kan dhiso waxaan ka hadlayay shalatoole afar waxaan ka hadlay afar level amba afar class afar school ba kala socda schoolka koobaad grade 1 schoolka labaad ka saddexaad iyo muxuu ahaa ka afraad ka koobaad waa kan lahaa adiga waa qof isagu isla hadlay weeyaan oo cid kale la hadlay aniga qofkaasi waa qof muxuu hadda inta ugu badan laga helo waxa discourse la yiraahdo maxaan ku rahdaa la yiraahdo monologue waa qof kaliya show sameeyo soo isla hadal cid kale dhageysanay fasalka labaad waxa weeyaan waa aniga iyo adiga laba qof oo wada hadlaya laakiin nin walba isma isla hadlay laakiin waa laba qof waxa ku jira meesha ka saddexaadna waxa waa qof iyo bulshadiisa la hadlay hal jeer aniga idinku xabaan sheegaya ta afraadna waa tan lahaa maxaa waa qofkii iyo inaga markay noqotay inaga qofkii wuxuu soo dhex galaya inaga markay noqoto qofkii wuxuu noqonaya qof inclusive wuxuu wada qaadanaya fikradii ka wada duwanaayo dhan dadka moola arkayo maxaan ku rahdaa si gaara marka taas waa ta afraad weeyaan waa ta muxuu ahaa doodu ay noqonayso dood saliima waa ta la isku fahmi karo waa taas weeyaan marka taabaan rajeynayaa horta inaan dee basekeena aan dhisan santaa u gaari lahayn kadib markaa si habboon oo caafimaad qaba inaan socon doonaa haddii kale dhexdan ku hakan doonaa marka taasi waa ta raba inaan idin sheego imiga haddaba ahaan arrintan aan ka hadlaya kuma koono keliya qoys Soomaali waa kun Soomaali baan la hadlayaa wallahi oo magacan wada wadaagno laakiin kuma koobna qabiil kaliya tan aan sheegay cid walba way ka faa'iideysan kartaa waxa weeyaan Soomaali marka u fiirsatin had iyo jeer way isku dayaan qof baa dukaan furaya intuu qofka fikir kale cusub oo creativity leeman lahaa kiyo kor ka furaya isagoo xisaabtami inta ka yimaaday client-ku waa imisa xitaa hadduu kaas wax badan macaashay mid kale ka furaya waa saas marka inuu caadi ahaan Soomaali markaan nahay waxaan isleeyahay maxaan ku raadaa waan isku dayanaa warun weeyaan oo marka jiro marketka maxaa jira markay noqoto dhinaca maxaan ku raadaa dhaqanka amba dhinaca siyaasadda markay noqoto waa silaasile haddaba waxa markaan ummadeena Soomaaliyeed saan eegno dhibaatooyin 30 sano in soo sameeyay waxay ahayd wadan la yiraahdo jira Soomaaliya oo burburay
oo hadda isku dayay soddonkii soo gudbeen baynu isugu dhiso qaarba magac bay la baxaan ya marka waa taasi weeyaan haddii taasi jirto oo la kacayo la kufayo ummadii waxa ku dhalata waxa la yiraahdo uqdad waxa weeye waxa la yiraahdo inferiority qorsi amba iskaas qorsanaya amba iska qof kale qorsanaya dadku markaa waxay u badan tahay inay noqdaan waxa la yiraahdo victim mentality victim ayaa ku dhaca hadda jeer in iyaga la dhibaateynaya ay aaminsan yihiin markay amba dagaalgalayaan amba ay ka hortagayaan waxay u kacaan sidii qof victim oo kale marka waxa weeye haddaba intaan dagaalka laga hadla kama dagaal qoriyo waxa la qaadanayo waa dagaalka la yiraahdo islaam jihaadka naftaada ya wixii wanaagsan aad naftaada ku qasbisid wixii xubna aad ka tegisid marka beeskan aan ka hadlay aan la yoosanahay levelka afraad aan ka daadan isku nimanka ka wada hadlayno wax badan baan isla fahmi karnaa wax badan baan qabsan karnaa laakiin haddaan garoonka aan dhaafin kii ugu horeeyay oo ahayd aniga waxaan isoo dhexgeliyay ego waxa la yiraahdo waxaan isoo dhexgeliyay makhluuqnimo aniga adiga marka ka labaadaan galno aniga adiga amba ka saddexaad markaan galno kaana shucuurahan dadka kala celceliya ay ka mid tahay baqdi ay ka mid tahay makhluuqnimo ay ka mid tahay maxaan ku radaa warwar amba walaac marka waxaan rajeynayaa in doodeena halkan ay keeni karto levelka afraad mid maskax caafimaad qabta iyo qalbi caafimaad qaba aan wax isku wadaarsano si cilmiyeysan marka ujeedadu waa taasi weeyaan marka inta badanna muxuu ahaa waxa dadku ay isku dayaan qabiilada Soomaalida inay siyaasad ahaanna ay samaystaan waxa la yiraahdo siyaasad qabiil taasina muxuu ahaa qabiilku waa iska waramay qabiil siyaasad ma yeelan karo siyaasaddu wax wareegto weeyaan oo dynamic laba qof wala laba meelood kala mari kara laakiin qabiilku wax dhiig isu keenay weeyaan ma wareegto marka muddo mara dhowr sanadood amba intaas waa wixii way kala baxaysaa laakiin marka la leeyahay qabiil dadku waxaa isku keenay dhiig marka noqoto siyaasadna dhiig maahin waa mabda iyo fikir taa lagu kala duwan kara marka haddii dadka qabiilada Soomaaliyeed ay isku dayaan haddaan nahay qabiilkaas waa inaan si siyaasadeed uga jawaabnaa marxaladda caynkaas oo kale waxay qaraacayaan meel qaldan waa taas oo dhanaysan weeyaan marka qabiil siyaasad ma yeelan karo laakiin ummad rabta inay sharaftooda ixtiraamto meesha doona ma joogsadaan ya waxay markaa yeelan karaan siyaasad oo ah maxaan rabaa qofka sharaftiisa dhowr xaqiisa si marka qofku hadduu xaqiisa siiyo qofka la xaqiisa u diidi maayo hadduu qofka la xaqiisa siiyana soo xaqiisa si fiican u isku siin marka beeskan waxa rajaynayaa in noqoto mid ku saleysan xaq maxaan rabaa niyadsan oo daacada oo qofku wuxuu sheegayo uu ka run sheegayo waa inta qaar marka waxa jirta dad dabeecado marka qaarkood la oran karo schizophrenia waxa weeyaan waa shakhsiyad dhowr shakhsi leh marka adigu kula joogo sidoo uu hadlayaa markuu meel kale joogana si kale u hadlayaa marka waxaad isweydiinaysaa qofkan markii uu saxsan yahay markii uu qaldan yahay waa xanuunka maskaxda weeyaan schizophrenia amba bipolar la yiraahdo oo marna waa happy marna waa mugdi marna waa happy marna waa mugdi haddii haddaba qabiilada Soomaalida aan ku tilmaamo xanuunadaas waxaan leeyahay qabiil badan oo Soomaali ayaa laga helayaa xanuunada la bipolar marna waa high marna waa down amba xanuunada la schizophrenia dhowr af bay kala leeyihiin mar sidan bay u hadlayaan marna sida kale u hadlayaan laakiin waxaan rajeynayaa iba gaar ahaan dadka qolkan ku jira inaan isla fahmno qofku inuu noqdo consistent yani haddaad mabda aaminsan tahay mabda'aagaasi amba walaalkaa la joog amba cid kale la joog isla mabdi inuu weeyaan marka inaan dhisno waxaa la dhahdaa saddex xagalku waxa weeyaan foundationkaaga waxaad aaminsan tahay hadduu ku salaysan yahay xaq haddii maxaan ku waxaad ka fikiraysaa ina visionka uu yahayna maxaan ku rahdaa ummadda yani wixii wanaaga xaq dhaqaale xaq siyaasadeed xaq diineed dhinac walba aad la doonaysid iyadana ma og tahay muxuu ahaa wuxuu kaaga jawaabayaa xalkaad ku socotay marka waxaad samaynaysid waxaad ka fikiraysid iyo waxaad leedahayba waa saddex xagal waxaa la saddex xalkaasi congruence baa lahaa waa qof la fahmi karo wuxuu doonayo iyo wuxuuna doonayo laakiin haddaan daacadnimayna jirin transparencyna jirin oo qofku uuna ku calool adkeyn wuxuu aaminsan yahay uu kalsooni isku qabo
wuxuu noqonaya qof la fahmi karo hadduu intaa lahayn wuxuu noqonaya qof aan fahmi karin waayo maalinna si buu kula hadlaya maalin kalena si kale kula hadlaya dhowr tusaalaan soo qaata laba qof wadooda ku dhex dhacday shil dowladu hadda ku celin maayo xitaa video waxaan u talagaa dadka dhegeystaan oon ahayn dadkan la hadlayo inay iska dhegeysan karaan waayo waxaan amisana waxaan inta wax ummaddu ay ka faa'iidaysan karto marka intaas ma kusoo koobi wixii kale markaa dee amba su'aal amba dood ka qaba way noo furanta assalaamu calaykum waraxmatullahi